gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciidan Injineer Faysal Cali Waraabi oo muddooyinkii u dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa qaar ka tirsan wadamada qaaradda Yurub ayaa maanta dalka dib ugu soo guriya noqday iyadoona gigida diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ay si ballaaran ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbigaasi Injineer Faysal Cali Waraabi gudoomiyaha xisbiga u ciidan qaar ka mid ah warfidiyeenada kula hadlayay qolka nasashada ee madaarka Cigaal ayaa ku eedeeyay xukuumadda talada dalka haysa inay mas'uul ay ka tahay dib u dhaca ku yimid doorashooyinka la filayay in bartamaha sanadkan ku guda jirno ay ka qabsamaan gudaha dalka isagoo sidoo kale Injineer Faysal Cali Waraabi uu tilmaamay inay sameyn doonaan dawlad ku meel gaar ah oo dalka gaarsiisa buu yiri doorashooyinka laga qabanayo dalka doorashooyinka waqtigooda dhacan way dhici weeday waxa uu dhicay sid ogaan baa lagu dhici weeday lagu tashaday wakiilada dambiga leh anoo markaan aanu shirnay bishii February aanu shirnay saddexda xusbi inuu ku shirnay akademiyada cidii diiday habkii aanu ku heshiinay waa la ogyahay cidii magaalada kicisay baarlamaanka tiri waa ka kacay waa doorashada waa la ogyahay wax badan bay iska qarsoon laakiin uu sheeg doonay waqtiga marka timaado insha Allah taala hada waxa loo baahan shir la isku yimaada waxa loo baahan yahay in dawlad midnimo qaran la dhisaa waa danta dalka toddobaatan wasiir iyo wasiir xilmo baahna hay qabanayaan yaa imaka intii qanacsan isleedin wasiirka saaf fiican oo farta lagu fiiqaa ma jiro nin aan ninka saaf fiican oo ku haya halkii loo doortay ma jiro waa dad mushaar soo qaadanayo reer baa lagu maslaxaya qaran iyo reer meel moodo mar kala marka aan waxaan u arkaa inay fail garooday ay baahan office department-kan samaysanay baarlamaanka uu saaqiday guurtida way saaqiday executive uu saaqiday marka waxa tale loo baahan lahaa soo yimaado wax inoo shaqeynayo sidii loo habay u shaqeynaya ma jirto wax sharci ku shaqeynaya ma jirto cadawgeena waa diyaar dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa waxa uu si kulul uga jawaabay eedeymo gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya uu soo jeediyay Somaliland dhulkeena Somaliland maanta dagaal baa inagu socda aad iyo aad waxaan maanta la midnahay neef magaalada say dhiig ka daayo kala markuu neefku dhiig ka daa xawayaanka cuno dhanay way soo urayaan waxay dhamaan cunaan maanta waynu qoomanayna qudadeyno cadawgeena dhan sida xawayaankaas ayuu diyaar yahay waxaana ku muujinaysaa damaantii dhawta Jawaari ninkii baarlamaanka Muqdisho madaxda oo isaga tiisiba gabay saddex gobol laga qaatay ayaa xitaa inoo hanjabiyay mar hadduu Jawaari inoo hanjabiyay waxba inoo ma harsanba taa waxa ku tusisaa inaynu in fact aan dayacnay ummadani halganka waxay u gashay inay samaysato qaran wanaagsan oo ku dhisan sharciga oo cadaalad ku dhisan laakiin hadda waxa muuqata in dadkii la gabay cid xil iska saaraysa aanay jirin qofkaas wadantiisa eriyanayo